اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات. laga yaabaa ninka Soomaaliyeed inuu caruuro u arko laakiin ninku gurigiisa markuu joogo waa ilmo weyn waa caruur halkan aad ku caruur ahaataa loogu talagalay sida daraadeed uu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi Aisha intay dabada u soo yara baxeen buu yiri inakeen baratanne waxaa soo inan yara waa la baratamay markaasay ka dheerays muddo la joogay maalin dambe oo dal safar la jeegay buu yiri Aisha maantana waa baratamayna inakeen waa yara marmarsato may waa baratamayna buu yiri ina dhaqaaji waa la baratamay markana Aisha waa yara cuslaat oo ina tiirayda fududayd ma aha sidii hore way iska bedeshay dabeetana uu ka dheereeyay nabigu intuu ka dheereeyay buu waliba yiri tilka bitilka taati uu turbu nabigu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi midkeen baa arki kari lahaa isagiyo haweenaydiisu intay dabada u yara baxaan inay baratamaan yani waxa laga yaabaa inay suurada ninka Soomaaliga agtiisa taala inay tahay ninnima la'aan ama waxaan yani dhaqan nin weyn u dhaqmo waa dhaqan nabi anigu waxaan ka warramay waxaan idin misaalka kama bixinayo cid kale tusaale kama bixinayo waa tusaale nabi Muhammad salawaatullaahi wa salaamu alayhi oo ah bashariyada ciddii loo soo diray inuu hago ilaahayba wuxuu abuuray kuwa jecel subhanahu wa ta'ala sida daraadeed ayuu nabigu salawaatullaahi wa salaamu alayhi dhaqama ka muuqanaya muujinaya in guriga kani uu kalgacalkaasi ku dhisnaado sida awgeed buu Aisha maaliku tiri ilaahay rasuulkiisa hooyanka loo dhamidee kunya bay leeyeen ana kunyo Abdullaahi buu ugu yeedhay Imaam Ahmed xadiiskiisa ku tilmaamay bal markuu u yeedhay uu tarxiimin jiray ya Aish magaco badh la gooyo magaco in la tuuro in yani magacii haweentu aan la wada dhamayn nus yar inta la sheego inta kalena la iskaga tago kullu dalik waxay sheegaysaa luqadatan iyo qaabkan loo dhaqmayaa inuu yahay qaab mashaacirta la ilaahay Aisha inan yara ee xabashida ciyaaraysa waxay tiri mar rabtaa buu nabigu yiri qoladan ciyaaraysa ina daawato haabay ku tiri tan nabigu isu taago dhinaciisay xaga dambeynta iska soo taagtay ayaan dhabanka u saaray bay leedahay oo maanta ma ka daashay markuu yiraahdaba may baan idhaahdaa anigoo rabay dadku inuu ogaado bay leedahay halka nabiga ka joogo ciyaarna ma rabina waxaan rabay bay leedahay soo nabigu igu jajaban yahay aan agtiisa qiimaha ugu leeyahay in ay dadka kale ogaadaan ama dumar kale inay ogaadaan waxay tilmaamaysaa qadaayaadkani ruuxil marax in ay ku jirto inuu nabi Muhammad leeyahay khiyaarukum linisaa'i hadiiskii Tirmidhi Albani Sahih ku tilmaamay waa idinku fiican waa kuwa dumarkooda ugu fiican baabkan waxaad moodaa inaan tilmaamay misaalkii koowaad يعني مفتاح السعادة الزوجية وشركة خياركم نية قبل يسخد الصدين شركة الرأس مالك هانتيد الرسم جاي هيستاني يكون تجارين ينبين له الحب وهلكو كبلا مفتاحها كان مفاتيح دواء الكبض بيلاده هاي المامان علماء يكمل ده التغاضي إن حساب تبضني تزيد المسافات بعدا إن لا يسد القاط وحياة بدن إيش اللي جربه كالجعل قوة برناضه فهم كسو كوبي يوم جوريجا مسلم كاي وجوري كالجعيل يسوور فيو ما كنا وجوري النحاريس إيوه معاملة في عنيد النصوص القرآن كي حديث كشيء إحسانية إيثارية وناقة صردان شرا عدالة الرحمة وح قرآن كشيء يردن ويوامش على الربو إن لغب برباريو وبتكبل شدا وسوكعية وبتكون جوري خيمة تسوى يقعنا معنى الحب يدتك كالجعل كالله هنا نحاريسته عدالة نمرسنانته عفوية تسامحة كل ذلك النصوص القرآن ترى بدن لا شيء اللي يريد kala kula dhaqan waxa awla ugu horeeya inaad kula dhaqanto maxay taa nolosha wadaagtaa haweenna waxaan ku soo koobaya iyada nabi Muhammad wuxuu yiri salawaatullaahi wa salaamu alayhi gabadh baa u timid dabeetana danay lahayd baa ka wareysatay markay dhameysatay wuxuu ku yiri nin ma leedahay haabay saasku tihiin buu yiri arigiisa saatahay waxaanu taag waaye mooyaane wuxuu u baahay uma meel yeela baylaad yani wax kasta in raali galiyaabaan isku daya wuxuu nabigu yiri ku dadaal isaga janniya naartaadii buu nabigu yiri idan haweenayda ninka waxa caan ka ah atakabbur bay dhahdaa iyo alkibriya marka wuxuu isleeyahay armaad dad wax yar samayso lagu yeesayaad hoos u soo dhacday waa cuqdatu naqs raga ku jirta bay dhahdaa cagsiga dumarka bay dhahaan waxa ka asala sulukiyaadka lagu yaqaan alcinaad madaxadaygo ninkan dabasani badan uu ka arko uu ku gumaysanayay aad wax iska dhicisid laakiin guriga dhabtahay waa gurigan labada midna ool ninkuna markuu guriga joogo isla weyniyo dhan uu ilaabay haweentuna markay gurigeeda joogto taacad dhamaanteed ay la timi ay haweenta waxa laga rabay xadku nabi maxamed tilmaamay salawaatullaahi wa salaamu alayhi muaad ibn jabal markuu shaam iyo meelaan ka yimay uu arkay qolo boobabkood
culimmadoodii wadaadadoodii u sujuudaysay uu nabiga yidhi adna aanu kuu sujuudno oo isku dayey wuxuu nabigu ku yidhi salawaatu waxaanad samaynaysaa waa maxay qisadii buu u sheegay nabigu wuxuu yidhi haddaan bashar uun fari lahaa inuu bashar u sujuudo bini aadam uun haddaan odhan lahaa bini aadam sujuuddu waa maxay sujuuddu waa meesha muujisa inaad ogoshahay ilaahay inaad addoonkiisii tahay waa waxa muujiya jidhkaaga halka ugu qaalisan ee ugu sarraysay aad haysataa waa wejigaaga aad soo nadiifisay ka dhalaalisay markaad halkaad cagaha ku haysay saarta macnaheedu waa maxay waa ilaah waa isu kaa dhiibay waxaan ogolay inaan addoonkaagii ahay waa calaama lilistislaam waxaa la yidhi haddii bashar uun loodhan lahaa bashar adna madaxa dhulka u dhig haweenkaa loodhan lahaa raggiinna u sujuuda idan haweenayduna cinaadka ha iska dayso ninkuna takaburka ha iska daayo guriguna kalgacalkii maalintii arooska laga olololaahaa lagu dhisayey maalinta xabaasha la qabanayo inuu siduu jiraabaa loo baahanyay ma gaboobe ha gaboojinina wallahu aclam billahi tawfiiq اليوم نختم جهدنا فتذاكروا عبق التلاوة فاح في الحلقات